السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسود وشانل كسويال كهودا وعلى وقبرتين نسجد بين ورك وهذا انت بدن كده وطن كصومالي عالم كا مجاعيجو ومصلح نصيب ومالنا مجمع تاريخنا يكون بينتا يصدن يكود بس جنوري لابد يكون يلا باتنكا كسود وهذا قد بدن ورك نقدر كرون مانتا wasiirka amniga Jubbaland oo gaaray magaalada Kismaayo kadib warkii uu anbaxay magaalada Nairobi galinka dambe ee maantay. daawadayaal dhankaasi wararka caalamka Mareykanka oo sheegay inay dan ugu jirto cudurka coronavirus intaasna waxay ahaayeen qodobadeena wararkan ugu dooro koron. daawadayaal haatan ku soo dhawaada sidoo faahfaahsan wararka laga helay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in duhurnimada maanta uu halkaasi gaaray wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janaan oo booliska Soomaaliya ay sheegeen inuu ka baxsaday halkii uu ku xirnaa. wararka ayaa waxa intaas ay ku darayaan in Cabdirashiid Janaan iyo xubno kale oo siday doonti ay ka degtay degmada Kismaayo sida uu sheegay xildhibaan Xasan Cabdi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka Jubbaland. dhanka kale wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janaan ayaa gordhow ka dhoofay magaalada Kismaayo isagoo ku sii jeedo magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Janaan ayaa waxa Kismaayo ka qaaday diyaarad ay leeyihiin militariga dalka Kenya sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan maamulka Jubbaland. 31 bishii Agoosto 2019 ayaa dawladda Soomaaliya ay xirtay Cabdirashiid Janaan xilli uu ka dhoofayay garoonka diyaaradaha Muqdisho. hase yeeshee 28 bishan ayaa booliska Soomaaliya ay sheegay inuu ka baxsaday halkii uu ku xirnaa. daawadayaal haatan dhankaasi wararka caalamka xogayaha maaliyadda ee dalka Mareykanka Wilbur Ross ayaa sheegay in caabuqa dilaaga ah ee ka dilaacay dalka Shiinaha haatan ku faafay dalal badan oo caalamka laga yaabo inuu wanaagsan yahay dhaqaalaha Mareykanka. mar uu la hadlayay telefishinka Fox News ee dalka Mareykanka ayaa Wilbur Ross waxa uu sheegay in cudurka Shiinaha ka dilaacay ay soo dadejin doonto shaqooyin badan oo dib loogu soo celinayo waqooyiga Mareykanka. mar xogayaha wax laga weydiiyay qatarta uu cudurku ku yeelan karo dhaqaalaha Mareykanka ayaa waxa uu yiri xaqiiqdii waa arrin u wanaagsan ganacsiga marka waxa ay la tahay inay soo dadejin doonto shaqooyin badan oo dib loogu soo celinayo gudaha Mareykanka sareen u qaadi doono dhaqaalaheena. hadalka ka soo yeeray xogayaha maaliyadda ee Mareykanka ayaa waxa cambaareeyay dadka dhaliila xukuumadda madaxweyne Trump. cudurka ka dilaacay Shiinaha ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dhaqaalaha waddankaas maadaama shirkado badan ay shaqaalahooda kala bixin dalka Shiinaha. hase yeeshee hadalka sarkaalkaas ayaa waxa markii dambe ka hadlay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka oo u muuqatay inay sulugsan tahay qaabka uu hadlay. saraakiisha caafimaadka ee Shiinaha ayaa sheegay in dadka uu haleelay xanuunka corona ay haatan tiradooda gaarayso ku dhawaad 10,000 halka 210 qofna ay u dhinteen. hay'adda caafimaadka WHO ayaa walaaca ugu weyn ee qaban ku tilmaamay haddii cudurkan uu ka dilaaco dalalka hanaankooda caafimaad u hooseeyo oo aan awoodin inay la tacaalaan. cudurkan ayaa haatan ku faafay 18 dal oo caalamka ka mid ah. daawadayaal intaasna waxaan oga wararkeeni fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe noo saar. intaan kulanka xiga aan kulmi doono waa aniga oo mas'aan si waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.